wada hadalkan wuxuu leeyahay happy birthday qaalidayda qoftayda kaliya buu ku soo yiri saytiri mahadsanid xabiibi soo yiri hadiyadaadii albaabka gurigiina keenay ka qaado saytiri dumarka aad bay hadiyada jecel yihiin I love you soo yiri ma xasuusataa gaarigii binkiga ahaa oo jecelayd saytiri yani waa yaabtay oo gaarigu ku keenay wait maxaa soo wadaa ma rumaysan karo waan ku jeclahay ani runtii soo yiri dacas gaariga kalarkiisa u eg ku soo gaday waa ka hor dhacday balbay sugta a'uudu billah wada hadalkeenan wuxuu leeyahay alla ani nimanka dumarka isla guursada necbiya xishoodka Allah ka qaaday saytiri aabahay baaba laba qaba soo yiri sorry qalbi asaga kama wadin dambigu asaga ma aha sidiisaba dambigu waxaa leh naagaha wasakhda oo bila xishoodka oo nin reero leh saa u daba ordayo oo iska gadaya 90ga saytiri xaaska labaad waa hooyaday wallahi waa eriyeysaa kan caadi u baacinaysaa oo dhadhaaf way caadiya soo yiri xabiibtii ay horta ma daawatay barnaamijkii love showga shalay wada romantic ahaa waa bedelaya asaguna inuu isdhaafiyu rabaa waa ka mid mintida weeye waa eriyeysaa asagu laakiin dhaqaaqi maayo ila tahay wada hadalkeenan wuxuu leeyahay war maxamed xageed ka dhacday waagan laguma arkee soo yiri walaalow geeri baa igashay aabahay baa dhintay Allah u naxariisto idinkana Allah idinka sabar siiyo saaxiib buu yiri soo yiri aamin wuxuu yiri muxuu ka shaqeyn jiray marxuumku soo yiri qabriyadu qodi jiray qabri qodu ahaa soo yiri kana awal bay Soomaalida horay ugu mahmaahday booran hadii ma qodin hadaad qodidna ha dheerayn ku dhici doonta oogidi astaghfirullah dhibaatadaas jirta marka xoogaa Soomaaliya ku fiican tahay oo abwaan aad ismoodido kelmadii la dhaaba aad mahmaah iyo gabay u soo qabatid aakhirtaanka waxaas kala la imaadaysan ninka dhan aabihii baa dhintay waa murugaysan yahay asagina wuxuu la soo istaagay ninkii walaalkii qabri u qoda aakhirtaanka saa ku dhacaya soo qabo saaxiib noocaas kala hadaad leedahay wax walba isaga gabya ama mahmaah keena markaba wada hadalkeena saddexaad wuxuu leeyahay qalbi qabow dareema saa qofkii kale wuxuu yiri shaah sanjabiil badan leh cab saakii kale wuxuu yiri hadda ma kici karibo ka waran hadii aan ani iyo adi isla joogi lahayn kaligeen maxaa sameeyay lahayd soo yiri laba koob waxay la tahay kana nin ah soo yiri laba koob oo shaah sanjabiil noo karin lahaa saytiri hadii aan ani iyo adi meel cidla joogno sheedaanna saddex nagu yahayna soo yiri saddex koob oo shaah sanjabiil karsan lahayd fursadu waa u diiday kar waa helo janno wallahi waa nin islaam oo daacad waa wax waayahan yaraaday gabar baa hooyadeed la hadlaysa saytiri hooyadeey caawa maxaa noo casho ah saytiri digir iyo bariis waa cashada ka caanka Soomaalida habeenkii saytiri alla xaafadana habeen walba digir iyo bariis ma ahe wax kale ma cunayna miyaadan naxariis lahayn horta hooyoy saytiri berri baan arki doonaa markaad reer yeelatid oon aragno habeen walba adoo digir dabka ku saaran tahay badanaa horta waa dhacdaa wallah saytiri ma aniga waligaa baadan arkayn asaguba ma jecla digirta saytiri naya maxaa tiri oo yani digirta dus jecla waa mid hadda joogo oo taqaana meelahay wax ku haysa iyadoo waalidkeedu ka warhayn ayadii baaba isku qarxisay nin baa naagtiisii oo ka xanaaqday midhay isfureen buu la soo hadlayaa soo yiraaday farxiyay walaalay waan khaldamay iska kay cafi ii soo laabo wallahi mar dambe kuma xumaynayo saytiri galaas ma ku dhow yahay soo yiri maya saytiri jikada tago galaas ka soo qaad soo yiri walaalay maxaad iigu ciyaaraysaa waa iga dhab wallahi bal waa yahay soo qaaday saytiri dhulka ku dhufa galaas soo yiri ku dhuftay soo ma burburin ma waad ku celin kartaa siduu ahaa waa may anigu saasoo kalaan ahay yani waxa way ku soo noqon maayo macnaheedu oo qalbigaygii baad burburisay oo na kala kaxay walaalle soo yiri maya ma burburin plastic buu ahaa wallahi ninkaas mid caadi ah nin la jana weeye gabadhii dhaweed xikmad ay soo waday waa ka haliyay hadda markaa u soo noqoto dibaadaaba uu galaaskii burburin ama miitaal cusub la wawde nin baa saaxiibkii la hadlaya soo yiri saaxabow xoogaa problemaan ku sheegiye sideen u xalliyaa ii sheeg adigu soo yiri haye soo yiri xoogaaga problemka warkii wili ma bilaabay soo yiri sideen u xalliyaa waxay la tahay dadka bilaabciraha u baafahmaya wuxuu ka wadaa yani xoogaa probleman ku sheegaya yani waa ku dhahaya xoogaa problem adiguna waxaad tiraahdaa sideen u xalliyaa buu u fahmi karo waraa wax aqli gabigiisa dadada kaga jiro wada hadalkeena mid baa wuxuu leeyahay maxaa tirtirtay oo qofka message intuu soo diray uu tirtiray soo yiri waa iska caadiye iska daaha ku mashquuline soo yiri ii sheeg maya maxaa tirtirtay yani ninkan faduul baa haysa oo qof walba faduul baa ka qabatay qof markuu message intuu soo diro haddana tirtiro WhatsApp-ka waxaas leeyahay muxuu tirtiray taw
saytiri waa gabar xabiibi lacag ii soo dir baan tirtiray siir tirtir ma labaad weer labaad tirtir maadaama hawsha ay lacag ahayd iska tirtirnaato tanna tirtir xitaa aad soo dirtay hadda wada hadalkeebaa kugu qosol badnaa adiga hoos iigu reeb